dabagalay wareystay dabagale jananka ciidanka isagu geed bay iguma soo gabana toos buu yidhi qolo maatay waxaan ku yidhi taliya ma qolaa mudaharaaday mise xusbi qaran baa mudaharaadayay wuxuu igu jawaabay maya habar yoonisii baa mudaharaaday iyo 200 oo midgaah ninkaa aniga igu dhuftay xiniinta toos baan garanaya mukhtaar baa laydhaa waa madaxa baadhaha saldhigga dhexe waa la wada garanayaa dee waxaan codsanayaa in la ii soo xidho imika isagii dhakhtarka waa lay dhigay markaan 3 cisho imika qalnaa ayay barar keentay saahiday xoog u barartay kadib shalay baan qalin labaad galay waxaa la sheegay xiniintu inay dhimatay oo ay damaged oo aan xiniintaydu noolayn kadibna waa layga saaray dee rajadaan qabaa waxa weeye haddii imika sharcigu ninkaa gacanta igu soo dhigi waayo waxa weeye maalintaydaan sugayaa maalintayda insha allah. hadda garabkayga waxaa fadhiya maxamed cali maxamed oo ah inankii laagga lagala dhacay xiniyaha maalintii ay xisbiyada mucaaridku ay dhigayeen mudaharaadka. maxamed ugu horeyn waan kugu soo dhaweynaya saab t v, bal ka waran xaaladaada caafimaad. waan dhawey walaal waan ku dhawey de xaalkayga waad arkaysaa dhakhtar baan allaa waxaan ka mid ah mudaharaadayaashii maalintii mudaharaadayay halkaa kheyryada marayay inantii lagu tumanayay baan bilayska ka riday oo ka reebay waa xiniyahaad inanta nagaga reebtay xaggaad ka keentay buu igu yidhi mukhtaar laydhaa dambi baadhaha saldhigga dhexe ah way la dagaalameen iyagoo 4 xiniinta isagaa igaga tuntay xiniintaydii imikana way dhimato oo layga saaray aniga cusbitaalka allah xiniintayduna waxay dhimatay intii aan saldhigga ku jiray 9 cisho saldhigga igu hayay waanan wax dhakhtar arag hal mar bay dhakhtar geeyeen dhakhtarkaasi wuxuu ku yidhi waa emergency oo la qalayaa kadib iyagu mas-uuliga may hayn oo may qalayni saldhigga igu soo celiyeen oo way igu sii hayeen markii aan ka soo baxay aan dhakhtarka imina waa taasoo waa lay qalay weliba 2 jeer baa imika lay qalay markii hore dhiig baa laga soo daayay xinjira xiniinta markii labaadna waa tan waa layga saaray waa dhimatay xiniintaydii miyir beelay markay xiniinta laadka igala dhaceen waxaanan soo miyirsaday anigoo saldhigga dhexe ku jira oo dhex jiifa weliba qeybta oobiga dadka maaragtay magaca lagaga qoro maarag halkaa anigoo dhex jiifan soo baraarugay markaasaan deetana sugaaday in saldhiggii lay keenay. hadda xiniintaadu way dhimatay? waa dhimatay haa xalay baa layga saaray xalay. marka baaqaad u diraysaa maxay tahay maadaama aad xiniintaadii ku weyday mudaharaadkii? baaqaan u dirayaa waxay tahay ninkaa aniga igu dhuftay xiniinta toos baan garanaya mukhtaar baa laydhaa waa madaxa baadhaha saldhigga dhexe waa la wada garanayaa dee waxaan codsanayaa in la ii soo xidho imika isagii. markii uu xiniyaha lagaaga dhuftay laagga saldhigga lagu geeyey maxaad kala kulantay saldhigga? saldhigga waxaan kala kulmay saldhigga waan ku xidhnaa markaan 3 cisho xidhnaa waxay yeedhay 2 sarkaal mid waxaa laydhaa cabdi cali xayd midna waxaa laydhaa diin qale waxay weydiiyeen mid wuxuu igu yidhi 3 xusbi qarankee baa taageertaa waxaan ku yidhi ma qabiilkaygaa jeceshay inaad ogaato aan si toosa kuugu sheegay deetana kii kale waag fadhiya igu yidhi war 4 degmee 4 xaafadood Hargeysa keebaad degtaa waxaan ku yidhi weli qabiilkaygaa diidaysaani ima wareysanaysaan ma qabiilkaygaa doonaysaan inaad ogaataan baan ku yidhi dabeetana macawistaan iska bixiyey xiniintaan ka dhaawacnaa baan tusay anigu dhaawac baan qabaa baan ku niyoonaa dhaawacan baan weliba xidhanay wareysaad wareysataanna qaadi kara maya dad qoladeeda doonaysa inaad ogaataan si toos ii weydiiya baan ku yidhi oo waan iskaga tegay saldhiggii baan iskaga xarooday qolkoodii waan ka baxay oo lay xareeyey haddana 2 cisho kadib dabagalay wareystay dabagale jananka ciidanka isagu geed bay iguma soo gabana toos buu yidhi qolo maatay waxaan ku yidhi taliya ma qolaa mudaharaaday mise xusbi qaran baa mudaharaadayay wuxuu igu jawaabay maya habar yoonisii baa mudaharaaday iyo 200 oo midgaah ayaa mudaharaadaysay buu igu yidhi waana janankii dhammaaya ciidamada bilayska noocaasu isaguna igu jawaabay su-aashaasuu weydiiyay anna saasaan ugu jawaabay intaa wixii ka dambeeyey isna dhaawacaygan tusoo waxaan ku yidhi taliya anigu waan dhaawacanay xiniintaasaa laygu dhuftay mas-uulkii ugu sarreeyay ciidamada qarankaa tay warna kama haysid saldhiggan waxaa ka socda kuwii igu dhuftayna way joogaan oo ninkaasaa igu dhuftaan madaxa baadhaha saldhigga intaa wax dheer oon ku hayaana ma jirte anaaba anigu dhakhtar u baahan baan ku ihi maanta oo dhibanaa intaa wax dheer oon isweydiinay ma jirto. saldhigga imisaad ku xidhnayd? waxaan ku xidhnaa 9 cisho. 9 cisho ma heshay gargaar caafimaad? maan helin
maan helin gargaar caafimaad ayo macaa ehelkayga laima soo dayn. Dadka marka dadkay baadi doonaya yimaadaanay saldhigga iga baadhayeen ma jooga baa lagu dhaha. Dadka qaar baa madheero loo dhaadhiciyo madheero ka baadi doona bay ku lahaayeen, cid layma soo daynin. Markii aan ka soo baxay maxkamadda layga soo daayay ayaama kadib baan dhakhtarka imi. ayaama kadib baa dhakhtarka lay keenay. dhakhtarkaana imika laygu qalay 2 jeer. 2 jeer baa lay qalo maanta ku 5 cishan laa dhakhtarka. Marka hore waa lay qalo xiniinta dhiig baa laga soo daadiyay xinjiro oo dib baa lay tolay. dhakhtarka waa lay dhigay. markaan 3 cisho imika qalnaa ayay barar keentay saaid ay xoog u barartay. kadib shalay baan qalin labaad galay. waxaa lay sheegay xiniintu inay dhimatay oo ay damaged oo aan xiniintaydu noolayn. keedna waa layga saaray. dee rajadaan qabaa waxa weeye haddii imika sharcigu ninkaa gacanta igu soo dhigi waayo waxa weeye maalintaydaan sugayaa maalintayda insha allah. xaata dhakhtarkan aad ku jirto ma dowladdaa ku keentay mise qoyska? maye dowladda iyo qoyskaygu midnaba ima keenin. waxay keenay guddoomiyaha musharaxa xisbiga wadani cabdiraxmaan axmed cabdilaahi. adigu xisbigaa mucaaradka ay keenay igana bixiyey dhakhtarka. ilaahay baana ka abaalmarin doonaa. dowladda keentayna ma jirto, qoyskayguna imuu keenin. marka hore waa lay qalo xiniinta dhiig baa laga soo daadiyey xinjiro oo dib baa lay tolay. dhakhtarka waa lay dhigay. markaan 3 cisho imika qalnaa ayay barar keentay saaid ay xoog u barartay. kadib shalay baan qalin labaad galay. waxaa lay sheegay xiniintu inay dhimatay oo ay damaged oo aan xiniintaydu noolayn. keedna waa layga saaray. dee rajadaan qabaa waxa weeye haddii imika sharcigu ninkaa gacanta igu soo dhigi waayo waxa weeye maalintaydaan sugayaa maalintayda insha allah. hadda garabkayga waxaa fadhiya maxamed cali maxamed oo ah inankii laagga lagala dhacay xiniyaha maalintii ay xisbiyada mucaaridku ay dhigayeen mudaharaadka. maxamed, ugu horeyn waan kugu soo dhaweynaya saab t v. bal ka waran xaaladaada caafimaad? waan dhowey walaal, waan ku dhowey. de xaalkayga waad arkaysaa dhakhtar baan allaa. waxaan ka mid ah mudaharadayaashii maalintii mudaharaadayay halkaa kheyryada marayay. inantii lagu tumanayay baan bilayska ka riday oo ka reebay. war xiniyahaad inanta nagaga reebtay xaggaad ka keentay biigu yidhi. mukhtaar la idhaa dambi baadhaha saldhigga dhexe ah way la dagaalameen iyagoo 4 xiniinta isagaa igaga tuntay. xiniintaydii imikana way dhimato oo layga saaray aniga cusbitaalka allah. xiniintayduna waxay dhimatay intii aan saldhigga ku jiray. 9 cishay saldhigga igu hayeen waanan wax dhakhtar arag. hal mar bay dhakhtari geeyeen. dhakhtarkaasi wuxuu ku yidhi waa emergency oo la qalayaa. dee kadib iyagu mas-uulgama ahayn oo imay qalayni saldhigga igu soo celiyeen oo way igu sii hayeen. markii aan ka soo baxay ee aan dhakhtarka imina waa taasoo waa lay qalay. weliba 2 jeer baa imika lay qalay. markii hore dhiig baa laga soo daayay xinjira xiniinta. markii labaadna waa tana waa layga saaray. waa dhimatay xiniintaydii. miyir beelay markay xiniinta laadka igala dhaceen. waxaanan soo miyirsaday anigoo saldhigga dhexe ku jira oo dhex jiifa weliba qeybta obiga dadka maaragtay magaca lagaga qoro maarag halkaa anigoo dhex jiifan soo baraarugay. markaasaan deetana isogaaday saldhiggii lay keenay. hadda xiniintaadu way dhimatay? waa dhimatay. xalay baa layga saaray xalay. marka baaqaad u diraysaa maxay tahay maadaama aad xiniintaadii ku weyday mudaharaadkii? baaqaan u dirayaa waxay tahay ninkaa aniga igu dhuftay xiniinta toos baan u garanaya. mukhtaar baa laydhaa. waa madaxa baadhaha saldhigga dhexe. waa la wada garanayaa. dee waxaan codsanayaa in lai soo xidho imika isagii. markii uu xiniyaha lagaaga dhuftay laaga saldhigga lagu geeyey maxaad kala kulantay saldhigga? saldhigga waxaan kala kulmay saldhigga waan ku xidhnaa. markaan 3 cisho xidhnaa waxay yeedhay 2 sarkaal. mid waxaa la ydhaa cabdi cali xayd, midna waxaa la ydhaa diin qale. waxay weydiiyeen mid wuxuu igu yidhi 3 xusbi qarankeebaa taageertaa. waxaan ku yihi ma qabiilkaygaa jeceshay inaad ogaato aan si toosa kuugu sheegay. deetana kii kale waag fadhiya igu yihi war 4 degmee 4 xaafadood Hargeysa keebaad degtaa. waxaan ku yihi weli qabiilkaygaa diidaysaani ima wareysanaysaan ma qabiilkaygaa doonaysaa inaad ogaataan baan ku yihi. dabeetana macawistaan iska bixiyey. xiniintaan ka dhaawacnaa baan tusay. anigu dhaawac baan qabaa baan ku niyoonaa dhaawacan baan weliba xidhanay. wareysaad wareysataanna qaadi kara maya dad qoladeeda doonaysa inaad ogaataan si toos ii weydiiya baan ku yihi oo waan iskaga tegay. saldhiggii baan iskaga xarooday. qolkoodii waan ka baxay oo la xareeyey. haddana 2 cisho kadib
dabagale ay wareystay, dabagale jananka ciidanka, isagu geed ba iguma soo gabana toos buu yihi qolo maatay. waxaan ku yihi taliya ma qolaa mudaharaaday mise xusbi qaran baa mudaharaaday? wuxuu igu jawaabay maya habar yoonisi baa mudaharaaday iyo 200 midgaah ayaa mudaharaadaysay buu igu yidhi. waana janankii dhammaaya ciidamada bileyska noocaasu isaguna igu jawaabay, su-aashaas weydiiyay, anna saasaan ugu jawaabay. intaa wixii ka dambeeyey isna dhaawacaygan soo waxaan ku yihi taliya anigu waan dhaawacanay, xaniintaasaa laygu dhuftay, mas-uulkii ugu sarreeyay ciidamada qarankaa tahay, warna kama haysid saldhigan waxa ka socda, kuwii igu dhuftayna way joogaan oo ninkaasaa igu dhuftaan iyo madaxa baadhaha saldhigaa. intaa wax dheer oon ku hayaana ma jirtee, anaaba anigu dhakhtar u baahan baan kuhi maanta oo dhibanaa. intaa wax dheer oon isweydiinay ma jirto. saldhigga imisaad ku xidhnayd? waxaan ku xidhnaa 9 cisho. 9 cisho ma heshay gargaar caafimaad? maan helin wax gargaar oo caafimaad ma helin? maan helin gargaar caafimaad ayaa macaa ehelkayga layma soo dayn. dadka marka dadkay baadi doonaya yimaadaanay saldhigga iga baadhayeen ma jooga baa lagu dhaha. dadka qaar baa madheero loo dhaadhiciyo madheero ka baadi doona bay ku lahaayeen, cid layma soo daynay. markii aan ka soo baxay maxkamadda layga soo daayay ayaama kadib baan dhakhtarka yimi. ayaama kadib baa dhakhtarka lay keenay. dhakhtarkaana imika laygu qalay 2 jeer. 2 jeer baa lay qalo maanta ku 5 cishaan halaa dhakhtarka. marka hore waa lay qalo, xiniinta dhiig baa laga soo daadiyey, xinjiro oo dib baa lay tolay, dhakhtarka waa lay dhigay. markaan 3 cisho imika qalnaa ayay barar keentay, saahiday xoog u barartay. kadib shalay baan qalin 2 galay. waxaa lay sheegay xiniintu inay dhimatay oo ay damaged oo aan xiniintaydu noolayn. keedna waa layga saaray. dee rajadaan qabaa waxa weeye haddii imika sharcigu ninkaa gacanta igu soo dhigi waayo, waxa weeye maalintaydaan sugayaa, maalintayda insha allah. xaata dhakhtarkan aad ku jirto ma dowladdaa ku keentay mise qoyska? maye dowladda iyo qoyskaygu midnaba ima keenin, waxay keenay guddoomiyaha musharaxa xisbiga wadani cabdiraxmaan axmed cabdilaahi. adigu xisbigaa mucaaradka ay keenay, igana bixiyey dhakhtarka. ilaahay baana ka abaalmarin doonaa. dowladda keentayna ma jirto, qoyskayguna imuu keenin.